qoladii baa noo soo gashay wallahi noloshayda ma arkin qolada qola ka cawaansan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات باني سلامي صاحب يال دمانتين مالك سو دافها الدنيا دا ادك جوجتين برتن أنا قد يهاني سوا على دقن إيا جيت كنا بضع هذا نقول عصب تاي سبسكرايب لايك إيا كومنتيكو مركز وين ديري قليان هدينا لجوجتين واب ما صنتها إنك سو مالمها ولا لا بدن عصب بانو قصو بيرين قلبي قال نقول هاي ناود ما سنتهين ما أنت وحرابا إنا نلو ذا قوشيكو دعدا أنا قو أتشوقي وأنا قو مرخاتك مركز شيكا داسي dad badan oo sheekada goobjoog u ahaa sidii doontaba ha ahaato sheekadaasi waxa la yiraahdaa one day iyo two day xaqiiqatan sheekadaasi waxay dhacday waqti aan ku jirnay safar aan xaggan ku iimaynay ama safarka Yurubta aan ku soo galaynay ayay qisadaasi noqotay marka qisada baan rabaa inaan hal inii la wadaago haduu Ilaahay raado wiil aan saaxiibnahay iyo gabadh Soomaaliyeed ka labaduba Soomaali bay ahaayeen laakiin gabadha ismaan garaneyn anaku wiilkaas garaneyn dad badan oo Yurubta lagu yimiday dariiq bay soo maraan dariiqaas waxay ka soo baxaan Ethiopia Sudan Libya sidaa bay badda ku soo galaan marka inta aan qisada kale ee safarkii aan ku imanay iyo wadadii aan soo marnay iyo waqtigii aan naga qaatay taasi gadaal baan u soo wadaa way soo socotaa balse waxaan rabaa hadda inaan hordhac aan niga siiyo sheekadan one day iyo two days ay ku dhacday sheekadan waxa ay ku dhacday maalmaha kamida saan soo sheegay safarkeygii dheeraa aan soo qaadanay aan ku imanay Yurubta anagoo ku guda jirna ayay sheekadan qabsatay waxaan ka baxnay magaalada Addis Ababa ayaan ka baxnay waxaan u sii soconay caasimada Khartoum ee Sudan ayaan ku sii soconay marka intii aan safarka ku sii jirnay safarkaasi xaqiiqatan gadaal ayaan ka soo sheegi doonaa safar aad iyo aad u adag buu ahaa habase ahaato hadda waxaan ugu dan leeyahay bas waa qisada ay u baxday one day iyo two day wiilku one day buu ahaa gabadhana two day bay ahayd iibana ku joognay magaalada Bahardar dawlad deegaanka Ahmarada Ethiopia halka anagoo joogna oo tahriibayaal ah dhoomanaya aan madax banaaneyn awoodooda iyo kartidooda aan ku bixi karin balse waxaan ahayn dad afduuban oo la afduubtay oo dad u afxiran ama dad ay haystaan oo meel ku xiran marka waxaan la geeyay gurigaasi wuxuu ahaa gurada geejadka ah hoostana dhooqa waliba dhooqo kala aatay maahin xaarka lo'da iyo caws la isku daray halka ayaan ku jirnay habeen ayaa halkaan la soo galiyay qolo kale ayaa halkaan uga sii horeysay anagu waxaan ahayn groupkayga hal gaari ayaan ahayn laba gabdhood ayaa nagu jiray inta kalena rag ayaan ahayn waxaan soo soconaba halkii baan imanay gurigii ayaana lagu soo xareeyay gurigaasi group kale ayaa ku jira oo Soomaali ma hayna cid kale aan ku dhex jirin meesha halkii baan lagu soo xareeyay halkii baan imanay soo dhawaad dhulka la jiifa taariikhii baa bilaabmay rafaadkii energy badnaa ee dadku ay hayeen uu ka soo dhamaanaya adu dad iyo dunyo aan dadkii iyo dunyadii meel ku wada xariisan yihiin waxaan u bixinay ahayd dhukuro walka aan ku aragnay rag iyo dumar wada xiiran oo hoolan marka canjarana loo keenay in qoriye dadku wada sitaan way wada hubeysan yihiin dibad uma bixi karno cadceed ma arki karno kaniif male meesho rag iyo dumar waa la isku dhex jiraa halkii saan u joognay waxa iska helay wiil iyo gabadh ayaa iska helay wiilka one day anagu la socday gabadhuna groupkii meesha sii joogay ay ahayd groupkayga laba nin oo magafayaal ah ama magafay la shaqaystayaal ayaa nala socday groupka kalena sidaa oo kale marka magafihii ama kuwii anaka nala socday ayaa la hadlay qoladii ama qolay la hadleen gaari baan loo soo diyaariyay waxaana la ballamiyay anaku caaw inaan baxno qoladii kale ee meesha sii joogtana ay naga dambeeyaan qisadu halkan ayay ka dhici doontaa waxa dhacday wiilkii iyo gabadhii aad iyo aad inay isku fahmaan oo iska helaan sawirka guud ee anagu ka haysan gaarigii markuu noo yimiday dadku waxay raacaan gaariyadan yar ee la yiraahdo minibuska gaarigii baa noo yimiday minibuski kiibaan ayaa anaga nala soo diyaariyay marka waxa la yiri groupkii hebel ahaa soo baxa wiilkii baa yimiday wuxuu yiri Caliyo waxaan u baahanahay gabadhan kama tagi karayo hay waa inaad xal ii heshid dadkii ay markii hore la socotay ay la socotaa u daabaalay dadka u daa may wiilkii waa naga diiday waa ooyay waxa dhacday wixii aan sameyn karnay inaan sameeyno dadkii tiraad ku soo galaysaa tirna wad kaga baxaysaa marka waxaan sameynay waa habeen waxa la baxay dharaar lama socdo lagu dhex qarayo marka gabadhu waxay ahayd gabadh shilis bay ahayd ama buuran wiilkuna wiil aad u dhuuban buu xaqiiqatan gabadhii dibadda loo saaray dibadda marka loo saaray groupkii kale ayaa ogaaday gabadhii in gabadh Hiblaayo ay maqan tahay baxday labadii baa isqabsaday labadii magafe gabadhu ma baxaysiyo ma soconayso marka wiilkii wuxuu sameeyay gabadhii inuu xambaaro oo dhabarka ku qaado la sii ordo si uu gaariga u geeyo gabadhii uu xambaaray dhulku waa madow dhagax badan ayaa jiray maxaa yeelay meesha habeen un baa soo galnay habeenna waan ka baxaynaa ma garanayno laakiin lugta ayaa kuu sheegaysa meesha inay dhagax badan leedahay inay buuro iyo beero isku dhex yaala ay tahay oo qowyo tahay meesha sidee doontaba ha ahaato gabadhii wiilkii dhabarkan ku qaaday buu yiri
waa xambaaray laba tallaabo haduu la qaaday iyo la kufay gabadhii jilibka halka jilibka ayaa dhagax ku dhufatay wiidiiba hadii taysgaadhay qayladaada hadii la maqlaan dadkan waa dad wala hubaysan hadii ay soo baxaan hawsheeda iyo dhibteeda leedahay adigu waxa tahay qof la haysta ayaa tahay oo awood isku difaacdid iyo meel aad u socotay meel aad ka noqotid ma haysatid dadkana waxay inta u badan ka aaminsan yihiin dadka Soomaalida dheeman iyo dahab madow dad lacag leh oo lacag wada wata waxa la isku fahmay in gaari kale la keeno oo labada gaari mar ay istaba raacaan wiilkii iyo gabadhiina sida ay isku raacaan wiilkii iyo gabadhii sidii baan isku darnay waan israacnay labadii gaari baan noo yimiday meeshii waan ka dhaqaaqnay markaan halkii ka dhaqaaqnay gaariyada ay socdeen kulli gaariyadu marka sida kale tahriib ay ahaayeen gaariyo sharciyeysan ma ahayn waa gaariyo bila sharciya weeyaan dadkuna waa dad bila sharciya oo sharci darro wadan ku dhex socda oo dareemi kartaa marka aad wadanka bila sharci ku socotid inaanad awood lahayn inaanad hadli karin inaanad wax diidi karin waxa jira dadka isku xidhaya magafe kuwa Soomaalida ee la socday magafayaasha ah waxa jira kuwa kale oo xabashi ah oo Tigray ah oo iyagana magafayaal ah waxa jira kuwa askar ah oo dawladda ka shaqeeya oo magafayaal ah hay'ad min Addis Ababa ila Liibiya waxaan dadka wada in yar ayaa shicib ah inta kale oo dhan waa askar weeyaan iyo dawlad sidee doontaba ha ahaato ninka meeshii ayaan ka soo dhaqaaqnay alxamdulillah waa nabadaysannahay waan faraxsannahay maxaa yeelay waa jicidkii ugu horeeyay waa laga soo baxay oo waa la neefsaday waxa la leeyahay maanta alxamdulillah waa dhaqaaqaysiin hore baad u soconaysiin magafuhuna wuxuu markasta ku dadaalayaa balse hadda waxaan ku soconaynaa wiilkii iyo gabadhii maxay kala yeeleen halka kala dambeeyeen wiilka iyo gabadha waxay kala yeeleen waxayna ku dambeysay sheekadooda ay ku soo gabagabaysantay isla habeenka ayay sheekadooda soo dhamaanaysaa dib dambana iskuma arkayaan waxa dhacday labadii gaari wadada ayay qaadeen askar ayaa joogta magaalana askar ayaa joogta oo meel askartu ay joogaan ayaa la maraa xarig ayaana ku xidhan askartuna oo hubaysan yihiin marka dadkan annagu aan la socono ama magafayaashana la socda telefoon ayay haystaan telefoonkaasina waxay toos ula hadlaan nin ciidan ay sheegayeen oo ciidanka wadada jooga oo madax ka ah halkii baan ka sii deynay magaaladii marka aan ka baxnay magaaladii kale aan galaynay waxa nagu qabsaday ninkii la sii ballamay askariga ahaa ayay daqiiqado meeshii ka tagay annaka habsaanay waxaan ku habsaanay waxaan qabsatay qolo seefaf iyo budad iyo dhagax wadata na qabsatay hadda in yar markaan magaaladii ka soo baxnay tii kalena aan galin marka dhagaxay meesha dhigeen dhagaxdii gaarigii ugu horeeyay soo ku dhaafay waa dhaafay gaarigii anagu aan la soconay ayaa isna xoog ku dhaafay dhagax baa meesha dikadii wadadii la dhigay marka dhagaxdii xoog ku jeed buu yiri waana bas weeyaan dhagax weyn ayaa candadii hoose ka qabsaday gaarigii marka gaarigii isaguna jecleen buu qasab isku taagay qoladii baa noo soo gashay wallahi noloshayda ma arkin qola ka cawaansan ka badowsan ka xayawaansan noloshayda ma arkin waxa dhacday qoladii in ay gaarigii markuu istaagay dhagaxna lagu bilaabay muraayadihii gaariga ayaa la burburiyay salaga dhigay kadib shofeerkii bay u tagay shofeerkii ayay la dhaadhaceen waxay sitaan waa seefaf iyo budad iyo dhagax qoryo kuma arkin laakiin inta bay sitaan shofeerkii baa iyo diginta laga dhigay waxay yiraahdeen 500 oo bir nasiib ka yiraahdo hadda 500 bay joogtaa sheekadu yaa ninkina waa diiday ma hayo annakaana loo soo galay laba gabdhood baa nala socday labada gabdhood aad iyo aad baan u salaamayaa laba gabdhood oo walaalahay oo soo jabnay hawada ayaan salaam marwani salaamaya labadii gabdhood ayaan dhaxda gashanay waxaan isniri labada gabdhood ba horta ininku marka dhimatiin labada gabdhood hal watago labada gabdhood horta ku dhintay ininku labadii gabdhood ayaan dhaxda gashanay marka mid kamid ah ayaa xidhneed muraayadiiba wax kale la ahayd muraayadii ay gabadhu xidhneed ayaa kan wax kale la ahayd jaakad yar qurux badan haday ku arkaan kaabi kala bixiyeen hada Ethiopia kama bixiya Ethiopia wadi joognaa Ethiopia ayaan joognaa wali Ethiopia kama bixin halka ayay noogu bilaabantay gaarigii waa la jajabiyay diginta laga dhigay 500 bay markii ugu horeysay sheekaduna taagnayd balse markii dambe waxay noqotay 2000 iyo wax bay noqotay 2000 iyo wax ayay noqotay aad iyo aad baan u naxsanayn aad iyo aad baan u canfariirnay yaabka naga dhamaaday waxa naga horeeyay inuu ka sii adag yahay halkii ayaan ka dhaqaaqnay qoladii way la sii daayeen lacagtii baa la bixiyay telefoon ayaana lacagtii lagu xaliyay waxa la hadlay ninkii askariga ahaa ama magafayaasha wadada oo dhan haystay ama madaxa uu ahaa kiiba la hadlay kiiba qoladii lacagta ana insiinaya ee gaariga sii daayay sidii baan ku soconay intii aan halkii aan ku habsaanay ee qoladaasina haysteen ayuu askarigii kale ee ninka kale uu la ballamay saacadii loogu talagalay saacada buu ku soo maray labada gaari ee sii daa laga yiri ayaa shaqadiisii ay dhamaatay ku kala ayaa shaqadii soo koray waa habeen
dhulku waa madow waa ciidan waa armigii dalka Ethiopia meesha xarig baa u xidhan gaarigii kale meel dhaxdu nagu sugayay way isla hadleen wayna soo sii daayeen ka yiraahdeen labadii gaari oo isdaba orday ayaa meeshii tagay xarig baa xidhan sida markaa isku taagnay afgarad bay dooneen afgaradkiiba waayeen ilaa ninkii waa iska bedel meeshii waa laga bedelayba waxay damceen in xarigii xoog lagu jeero labadii gaari markay kiciyeen ee labadii ay isdaba boodeen ayaa loogu dhuftay ayaa rasaasina lagu furay marka gaarigii kale ayaa naga horeeyay anaka gaarigii naga horeeyay gabadhii baa la socotay gaarigii shaaga laga dhuftay kadib gabadhiina rasaastii baa ku dhacday anigu indhaha kuma dhufanin laakiin gaarigii halkii buu fadhiistay shofeerkii uu ka soo cararay anigu gaarigaygu nabad yahay shofeerkii uu ka soo cararay dadkii kale oo dhan way kala firdheen aniguna dib baan u orodnay dib buu shofeerkii noo baxsaday shofeerkii kalena maxaa la gaarigu soo qabsaday ragii gaariga kale la socday ee inamadii Soomaalida aan isla soconay ee group kale ahaa gaariga kuwa ka soo laabay oo dabada soo qabsaday kuwa kaynta kala galay ayay dadkii noqdeen balse iyadii dhaawac bay noqotay markii horena jilibkay dhagax ku dhufatay ahayd markii dambena rasaastii baa ku dhacday waxay ii xaqiijiyeen walaalihii meesha joogay in ay gabadhii bawdada ay kaga dhacday rasaasto kadib anaku dib baan u orodnay qiyaas saacadu waa 3 habeenimo ilaa 4 habeenimo weeyaan dhulku waa madow in badan ayuu gaarigu dib u sii orday ama bundo hoosteeda ama kaabad ayaan galnay halkii baan ku yarnasanay anagu halkii ku nasanayna ay bool askartan ugu yimaadeen askartan imatay anaka nooma socdaan lacag bay doonayaan bas waxa meesha joogo oo dhan ama meesha ka shaqeynaya oo dhan lacag bay wada socdaan qof kasta lacag buu doonaya hal fargal oo gacantaada kugu jira saacad iska badayay hal fargal oo gacantaada kugu jira hadii laga baxay halkii askartan ugu yimaadeen magafiina la socday Soomaaliga ahaa la hadlay kuwii meesha haystay ee askarta ahaa kuwii baa laga yiri sii daaya daraar 10kii subaxnimo halkii xalayna lagu rasaasay ayaan 10kii subaxnimo aan dhaafnay anagu gaari la socona sidii ayaan kaga baxnay gabadhii 2 day ahayd iyo wiilkii 1 day halkii ay sheekadooda ku gabagabaysantay ku soo dhamaatay marka mawduuceena maanta inta ayaan ku soo koobaynaa haday qisadu ku cajabisay like noo saar hadaad ka heshay subscribe hadaad jeceshahayna asxaabtaada noola wadaag video ka dambeeya waxa aan bilaabaynaa qisadii haduu Ilaahay yiraahdo min halkii aan ka soo bilownay ilaa iyo qaabkii aan ku soo galnay Yurubta khaasatan sidii anigu aan ku imiday dalka Belgium ayaan kula wadaagi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inaad ka heli doonto qisada waxaan rajaynayaa tii ana igu dhacday iyo dhibta aniga i soo gaadhay in adigu ku soo gaadhay ma rabo halkii anigu aan ku kufay in adigu aad ku kuftid ma rabo marka insha Allah inta iskugu iman doona videogan xiga waxaan iga tegaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nabadgelyo